Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo. Halkani waa meesha aanu soo gelino barnaamijyo fara badan kuwaasi oo intooda badan xiiso leh. Haddii aad halkan ku cusub tahay fadlan taabo barta cas ee hoos ku taala si ay kuu soo gaaraan muuqaaladu xilliga aanu soo gelino. Warar is soo taraya waxay xaqiijinayaan isla markaasina ay sheegayaan in Xalliye loona yaqaano Cabdisamed Maxamed Xalliye lagu dhaawacay magaalada Nairobi. Ninkan oo caan ku ahaa isla markaasina si weyn loogu yaqaanay inuu yahay nin dumarka Soomaaliyeed si ba'an u dhaliila mararka qaarna lagu tilmaami karo inuu yahay nin dumarka aflagaadeeya. Ninkan ayaa waxa uu caan ku yahay inta badan in uu soo duubo muuqaalo uu ku dhaliilayo dumarka ragga lacagta ka qaata. Wuxuu isticmaalaa aaladda TikTok halkaasi oo dad fara badan ku xiran yihiin. Waxa uu noqday mid ka mid ah dadkii ugu saameynta badnaa ee dadku ay sida ba'an u falanqeeyaan gaar ahaan markay timaado arrimaha qoyska iyo dumarka. Ninkani waxa uu galaaftay isla markaasina uu isku dayay dad fara badan, rag fara badan oo naxariis u samayn jiray dumar ayaa waxa uu durbadiiba ku kalifay inay joojiyaan kadib markii uu ugu maqlay eray bixinta ah daanyeer. Daanyeernimadu waxa ay noqotay ereyga ugu weyn ee isticmaalaan ragga jeebka adag. Haddaba ninkan ayaa waxaa magaalada Nairobi ku weeraray gabdho isxilqaamay kuwaasi oo u adkeysan waayay isla markaasina ay u cubtami weydii ninkan har iyo habeen u soo taagan inuu dumarka Soomaaliyeed aflagaadeeyo isagoo isku daray raggii iyo dumarkii isla markaasina iibinaya aragti ah inaan dumarka waxba la siin qof kasta oo wax siiyana uu yahay daanyeer aan waxba aqoon. Xalliye oo martiisa Facebook soo dhigay qoraal ayaa waxa uu sheegay inuu ka badbaaday isku day dil ay soo maleegeen waa sidoo hadalka u dhigay dumar. Waxa uu hadalkiisa ku daray in uu waxyaabahaas oo dhammi ugu dhacayaan isagoo u halgamaya ama halgan uu ugu jiro inuu ragga xoreeyo. Dad fara badan ayaa arrintaasi su'aal ka keenay. Waxaa la isweydiinayaa waxa uu xorriyaddu sheegayo tahay